الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل فروض الوضوء 6 وحالك فصل قد يشوف فروض واجبك وصدة واللح شيء مركا ليالو أو فروض أركان وأسكمين الأول كان كواد النية النيدي والثاني كان لبان غسل الوجه ووجه ولا قصاله الثالث كان سدحان غسل اليدين لبدا قعمود oo la qasalo way macal mirfiqayn ila iyago la qabo suxulada الرابع كان افرادنا waxa masxu shay in la masxo min ar-ra'si madaxa xal uu kamid yahay al-khamis kan shanaadna qaslu rijlayn labada lugood waa in la qasalo macal kacbayn iyago la qabo canqawyada السادس كان lixaad waxa way at-tartiib in la kala tartiibiyo halka sheekhu wuxuu kaga hadlayaa waxa weeye faraladii weesada oo weesadu waxay leedahay lixda faral bay leedahay oo lixda shay hadaan la helin weesadii waxa weeye wax jira noqon mayso waxa asal u ah qowluhu ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu alla wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu wardulku iimaanka laga helayo ida qumtum markaad u istaagtaan ila salaati salaada markaad u istaagtaan fadhsilu mayra وجوهكم وجيدنا وأيديكم كعمهنا إلى المرافق إلى ذا بمعنى معويه يقول لقبه عن وحوي سحلبة وامسحوا مسحة برؤوسكم مدح يدنا مسحة وأرجلكم وحوي لوهنا إلى الكعبين يقول جاري عن قويضة يقول لقبه النبي صلى الله عليه وسلم سيدو كله وحا سنذي يدنا كتوسينيسا ونبي يقول حديث أبي هريرة أو متفق أها لا يقبل الله صلاة أحدكم بالنبي يقول صلاة أحد كينا إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله إذا أحدث حتى يتوضأ حدو حدثه وحوي وسدي كجبته إلى أصو وسيسته صلاة لك ما أقبله مركب كتوسينيسا يدنا إناني صلاة دي وحوي aan la aqbalayn haduusan qofkii waasaysan marka lixda rugni aayada inoo sheegtay waxa weey afar kamida niyada ka horeyso hadii nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inama al-a'malu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa inadu wa adaatu al-hasr ya ma adaatu al-qasr xaga balaaqada wa inama tasixu way macnaheedu xadiis inama tasixu waxay ku ansaxaysaa a'maashu an-niyawi niya la'aan حبكم عن سحما وين النية تقاب كذا النية سنة وينو إيمان سفصل قدام الترتيب تنا وإن أذكر الترتيب سنة وحلا جوضا إن حد حمن أقضاء حجاء وكادس اسمع سيدا يسوق حكياني إنه آيات ضبي يكله الرئيسي صي إن القاب كامرده أو سيقظة أدري عديد ومثلا ألا وحيد هذه وحوي فاغسلوا وجوهكم بأوجه الرئيسي حاكوا حقي وأيديكم حاكوا حقي وامسحوا وأرجلكم ساسا لو كلا حجي حمن بحمد يسأوجه الرئيسو saa waxa weey inaad ugu horeysiisid ayaa iyadana waxa weey tartiibta laga wadaa faslun an-niyatu niyadi walka kaga hadlaya fasalkan wuxuu u yahay niyadi buu fasal u yahay qastu shay niyadi waa maxay qastu shay waa shay in loo qasto muqtarinan xal u yahay shayga mid la xiriiriyay bi ficilkiisa wa mahalluha niyada mahalkeeduna qalbiga qalbiga weey والتلفظ إن لغو تلفظ لغو دواقو بها نيدينا سنة سنة وي ووقتها وقت النيدنا عند قسل أول جزء وإن لا وحوي لما جزء ugu horeeya oo wajiga in la qasaalo oo waxaway juzga ugu horeeya in waxaway la qasaalo min wajiga ka ahaaday saas way iyadina xilliga waqtiga niyadu tartiibtuna oo ku yiraahday waa waxaway awal hore uga soo hadlayo tartiibtii buu ku macnaynaya gadaalka ugu celiyay rugnigii lixaad ahayd وما حيان لا يقدمه وإنوسن كهرمرين روح وما لا يقدمه وإن لا جهرمرين عضو حمين على عضو حمين كلا وإن لا جهرمرين سيدا يحملوا كلا ترتيب سينهين وإن لا قط لكن يدي بكجاه الله ياو نيد هرم ينصر شجني وحصل واحد كالنبي وها إنما الأعمال بالنيات وهكذا نيد ومحي وإنها شيء وقصديد وجوان ستيد لكن شيء من قوان صدوني استكريه لقى مرة وين فعل بالله حريرة فعل نيدا حقي بوسكيد وحقي وقلبك شو سجاب كوش إن لقوا تلفظنا وسنة
laakiin sunnadaasi sunnatu nebiyi maaha waa sunnatu istixsaan oo culammadu ay waxa weeye istixsaansadeen oo ay kasoo iyagu waxa weye fahamkooda kusoo dhilaandhiliyeen oo dadkana wax lagu fahansiinayay inaad ku talafudo oo tiraahdid waxa weye waxba iyadu sunno maaha laakiin maxalkeedii baaba lagu sheegayo waa qalbiga waaye waqtiga wax la niyeysanayo waa goorma waa juska ugu horeeya marka waxa weeye qasaasho oo wejiga tusaale ahaan gacmaha soo dhaqiyo waxaasi waa sunni marka calacalaha soo dhaqaysid laakiin saa marka gacmaha wejiga u saartid oo inta ugu horeysa halkaasaad niyeysanaysa waaye xumin waa inaadan ka hormarin baa laga wadaa tartiibta halkana wuxuu ka gelayaa shiikhu almaau biihi faslun fi lmaai alqaliili waalkathiir ayuu fasal u yahay almaau biihi qaliilun kuwa yar weeye wa kathiirun kuwa badan falqaliilu biyaha yari maa duuna qollatayn waxa ka yar weeye waalkathiiru biyaha badanna qollataani laba qollo weeye fa akthara wax ka badan laba qole wixii ka badan ayaa la yidhaahdaa qollataankana waalqaliilu biyaha yar yatanajasu waxay ku najaasoobaya biwuquuci najaasati najaaso inay ku dhacdo fiihi dhexdooda wain lam yatagayar walow lam yatagayar yeysba isbedeline haddii biyihii yaraa ee najaaso ku dhacdo iyagu saasay ku najaasoobayaan hadday doonaan midabkooda yeysan isbedelin oo sakeel biyaha halkaa ku yaala ad aragtay kaadi yaroo ku dhacday biyihiina waa iska daahiro waad aragtay halkaa markay muuqdaan wax wasakha kama muuqato waa najaaso yeysan isbedelin inay isbedelaan shardi maaha walmaau lkathiir biyaha badanna laa yatanajasu ma najaasoobayaan ilaa idaa tagayara inay isbedesho moohe dacmuhu dhadhankoodu aw lownuhu ama midabkoodu aw riixuhu ama urtoodu halka wuxuu kaga hadlayaa musanifku biyihii maadaama dee la dahaaro qaadanay dhagaxii wixii gaari lagu dahaaro qaadanayay buu tirinaya biyihii waxaynu soo sheegnay dhagaxii waa la soo sheegay biyihii baa halka gelaya oo biyihii waxa weeye laba loo qaybinaya biyo yar iyo biyo badan biyaha yar marka nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisi waa tuu ahaa idaa balaqa almaau qollatayni hadday biyuhu laba qollo gaaraan lam yaxmal ilkhabatha ma xambaari karaanin waxa weeye wasakh ma xambaari karaanin oo biyahaas hadday qollatayn gaaraanin marka xadiiskaasna waxaa laga qaatay biyihii buu xadeeyey oo wuxuu u kala qaybiyey labo biyo yar iyo biyo badan biyaha yarna waa mafhuumka xadiidka waxaa laga fahmayaa biyihii badnaa maadaama ayna najaaso qaadi karin waxa weeye biyaha yari hadda way najaasoobayaan waa mafhuumka xadiidka weyn waaya marka maxaa lagu xadidi karaa qaliil iyo kathiir maxaa la odhan karaa dee culimmadu waxay ku xadidaaniin biyaha waa yar yihiin waxa weeye iyo way badan yihiin tusaale ahaan maalan culimmada mucaasiriinta oo haddii luuqadeenna aynu dee yaro raacno waxa weeye waa 191 litir haddii biyuu gaaraaniin iyadoo lasoo dhaweynayo dee lasoo dhaweyna wax laga wadaa haddii hal ka dhiman yahay oo 290 ay noqdaan waa iska caadi ama haddii hal ku darsan yahay oo 92 ay noqdaan oo kale saasaa laga wadaa soo dhaweyn ahaan adugu 191 litir ayay biyahaas lagu qadari karaa maxaa axkaamta ka dhalanaysa tahay biyo intaa ka yar oo biyo yar haddii ay ku dhacdo najaaso iyaga waxa weye saas ku najaasoomay lagu dahaaro qaadan maayo biyo badan haddii ay oo intaa ka badan oo waxa weeye 190 litir ama 191 litir ah iyaga haddii najaaso ku dhacdo waa la fiirin midabkoodu ma isbedelay dhadhankoodu ma isbedelay urtoodu ma isbedeshay intaa haddii la waayo waa lagu dahaaro qaadanaya waayahay faslun muujibaatu lqusli qubayska waxyaalaha waajibiya 6 wey inuu qofku qubaysto ay waajib ku noqoto inuu soo qubaysto oo waxa weeye soo biyo isku soo shubo waa 6 shay kow ilaajul xashafati waa xagga hore oo la geliyo farji la geliyo xagga hore oo xuminka taranka oo waxa weeye farji la geliyo ayaa kow ka ah wa khurujul mani qofka oo mani ka soo baxdo sifaday doontaa uga soo baxdo isagana waxa ku waajibaya inuu qofku soo qubaysto والحيد iyo والنفاس والحيد dhiigga caadada gabadha inay hesho iyo والنفاس dhiiggi waxa weeye dhalmada waaya iyo والولادة dhiigga dhalmada laftiisa dhiigga nifaaska iyo wilaadada midna waa aqibal wilaada buu yimaadaa oo dhalmada kadib midna markay gabadhu dhalayso ayuu yimaadaa marka labadaas dhiig hadii hesho haweenaydiina
iyadana qubays baa ku waajibaya walmowtu geeridii halka ka 6 shay buu sheekhu inoo sheego laba loo qaybiyayo 3 la wadaagayo 3 la kala leeyahay 3 waa la wadaagayo qofka hadduu dhinto rag iyo dumar ku doonahaade waa la qasaalin hadduu farjigiisa ruux ay wax galaaniin uu qubaysanaya uu soo daharo qaadanaya haddii mani ka timaadona uu soo waxa weeye qubaysanaya qofka uu qubays baa ku waajiba 3 rag iyo dumarba waa la wadaaga 3na dumarkay u sii dheer yihiino waa haweeneyda dhiga caadada hesho ahkaamtii iyo wixii laga rabay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jiiday salaad iyo soomkii way iska deynaysaa ilaa inta daahir ka noqonayso marka ay soo daahir noqoto markay daahir noqotana way soo qubaysanaysaa waa waajib dhigi dhalmada iyo waxa weeye dhigi dhalmada gadaashiisa iimaanayeen hadii haweeneyda hesho iyadana way soo qubaysanaysaa 6 shay ayaa iyadana waajibiya qubayska faslun furudul ghusli qubayska faraladiisu 2 way hadaba qubays waa la sheegay qubaysku inuu maxaa arkaanta looga baahan yahay waa maxay 2 shay kaliya aniyatu qofka horta waa inuu niyoodo inaad ka qubaysanaysid gabadhi waa inay niyeyso dhiigay caadada oo daahir ka noqoto ama kii dhalmada ama moogd inaad qof waxa weeye intee loo qubaynayo hakada inuu waxa weeye khuruujul mani baa ka timaaday oo mar junub noqday inuu jinaabo ka qubaysanayo ayuu qofkii niyeysanaya saasad niyeysanaysa marka aad biyaha soo qaadatid waxaaga diyaarsid waaye watacmiimul badani bil maa watacmiimu waxa ku camimaysaa watacmiimul badani jirkiiba waxaad ku camimaysaayo aad ku wada shubaysaa bil maa biyihiina jirkiibaad ku wada shubin qofkaas waxa weeye la dhaqayona de waa inuu muslim yahay oo qof muslim uu yahay 2 qol aan la dhiqi karin baa jiro shahiidkii waa la mid qofkii iyo isaga hadii haba qubays shardi maaha oo sida nusuus kale gaar ah ku soo aroortay waaye shuruudul wudu halkaas aan ku joojinayna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa a'la